caabuqyada ku dhaca kaadi mareennada waxay u imaan karaan laba qaybood. In qofka uu kaga soo gudbaan dhanka kaadi mareennada hoose iyo in qofka ay kaga soo gudbaan dhanka keliyaha ayagoo ay ka imaanayaan habmareenka dhiigga. laakiin dadku waxay ku fududaadaan isla markii inay daawo hore ka qaataan gaar ahaan noocyada antibiotic. inta aan barnaamijka gudagelin saaxiibayaal waxaan idinka codsanaa inaad meel dheer gaarsiisaan YouTube channelkayga, like iyo subscribe-ka aan naga hilmaamin. sidoo kale waad soo weydiin kartaa wixii su'aalo iyo aragti aad u baahan tahay. marka labaad haddaad iga fiirsanaysa dhanka Facebook-ga waxaan kaa codsanayaa inaad follow-ga iyo like page-kayga aadan ka hilmaamin. aad iyo aad idinkaga mahadnaqaa dhammaantiin inta igu cusub iyo inta hore la socotay. in qofka uu ka xanuunsado ama caabuqyo ay kaga dhacaan ama bacteria ay ku samaysanto dhammaanka kaadi mareennada waxay ku imaan kartaa laba qaybood. in qaybta hoose ay ka bilowdaan caabuqyada gaar ahaan ureterka ama kaadi mareenka hoose ee dabcan ay ku samaysanto ama ay ka soo gudubto microorganism ama bacteria, taasoo awood u leh bacteriada ama microorganismka inay ku dhex badbaadi karto luuminka gudihiisa ama tubada gudaheeda ee kaadi mareenka. waxayna noqon kartaa inay usii gudbi karta dhanka kaadi heesta, halkaasoo ay noqonaysa inay ku samayso colonization, inay ku badato, ku weynaato, taasoo ay waxyeeleeni karto markaas habdhiska kaadi heesta. qofka marka ay bacteriada hoos ugu soo gudubto ama ureterka hoose kaadida banaanka u saaro waxay noqon kartaa in bacteriadaas meesha ay ku badbaadi karto, multiplication ay sameyn karto, danna ay noqon karta inay usii gudubto qeybaha kale ee kaadi mareennada. arrinkaas marka uu dhacayo ee kaadi mareenka hoose gaar ahaan kaadi heesta ee bacteriada ay ku badanayso waxaa loo yaqaana biofilm. waxay sameynaysaa bacteriada inay isku dhadhagto, ay weynaato, multiplication ay noqoto, ay sameyn karto inay la dagaasho habdhismeedka difaaca uu qofku uu leeyahay gaar ahaan lymphatic system. jirka baniaadanka markay organism uu soo galo ama waxyeelo yar ama caabuq yar uu soo galo waxaa dhacaysa in la soo daayo gaar ahaan qeybaha difaaca jirka uu leeyahay habmareenka dhiigga, lymphatic cellska kuwa loo yaqaano neutrophilska iyo eosinophilska inay la dagaalaan infectionkaas ama microorganismka meesha soo dega. waxay noqonaysaa marka interaction inuu dhex maro falgal, taasoo ay noqon karto qofka hadduusan iska daaweynin in bacteriada ay ku xoog badnaanayso meesha, baabi'ini karto unugyadii ka qayb qaadanaya inay ka hortagaan infectionada. waxay noqon kartaa meeshaas inay ku badato ee isku dhegto wax loo yaqaano ay noqoto biofilm. marka ay sidaas noqoto awood waxay u leedahay bacteriada inay waxyeeleyn karto habmareenka kaadida. infectionka markuu hoos uu ka bilaabmayo kaadi mareenka waxaa loo yaqaanaa ascending, in ay caabuqyada qaab ahaan hoose usoo bilaabmaan ee usoo gudbaan dhanka kore ee kaadi mareennada. arrinkaas waxaa loo yaqaanaa qaab ahaan ascending, kor ayuu u socdaa infectionka. waxyaabaha ugu badan ee keeni kara in caabuq uu ku samaysmo kaadi mareennada waxaa ugu horeeya microorganismka loo yaqaano E. coli. E. coli waa bacteria had iyo jeer survival ku noqon karto dhanka kaadi mareennada, tubooyinka kaadi mareennada, keliyaha iyo kaadi heesta. sidoo kale waxyaabaha kale ee sababi kara in bacteria ama caabuq uu ku samaysmo kaadi mareennada waxaa kamid ah Enterobacterium Proteus mirabilis. dhammaan waxyaabahan aan kasoo hadalna waa microorganism ama waxyaabaha infectionada ama bacteriada sababi karo. marka ay noqoto in qofka ascending ahaan ay ugu timaado, haddii qofka bacteriada ay aada ugu daahdo caabuqna uu ka dhasho dhanka kaadi heesta, arrinkaas waxaa loo yaqaanaa cystitis. in kaadi heesta ama qaybta kaadida ay ku jirto bacteriada markay ku daahdo ama caabuq ay isku bedesho, inflammation uu dhaco, waxay keenaysaa ama uu noqonaa cystitis. sidoo kale waxay kaloo ay saameynaysaa tubadii hoose ee kaadi mareenka ee loo yaqaano ureter, waxay noqonaysaa ureteritis. sidoo kale bacteriada meeshaas ku dhalata waxay kaloo ay saameynaysaa prostate glandka inuu noqdo asagana prostatitis. dhammaan waxyaabaha saameynta waxaa u keenay dhanka infectionka ee ku tarmay, kuna badatay, kuna weynaatay, waxyeelo badanna gaarsiisay xubnihii kaag dhawaay. hadduusan qofka
iska gaarin ama uusan baaritaan badan uusan sameyn kartaa bakteeriyada ama microorganismka in uu kor usii gudbo qeybaha kore ee kaadi mareenka, gaar ahaan labada tubo ee keliyaha kaadida kasoo qaada ee loo yaqaano ureter. Arrinkaas waxay noqonaysaa meesha marka uu u gudbayo inay saameyso si toos ah habdhismeedka keliyaha, gaar ahaan qeybta loo yaqaano renal pelvis. sidoo kale waxa kale oo ay saameyn kartaa parenchymal cells, dhammaan unugyada iyo tissue ay ka sameeyeen habdhismeedka keliyaha. wuxuu noqonayaa qofka marka in caabuq uu ku sameysmo dhammaan tubooyinkii dhex marayay keliyaha, nephroniska uu caabuq uu gaaro keliyaha guud ahaan. waxaa loo yaqaanaa pyelonephritis, in caabuq uu saameeyo marka ugu dambeyso dhanka iyo keliyaha. waxay ka dhigan tahay guud ahaan qofkaas inuu ka xanuunsan yahay habdhismeedka kaadi mareennada. dhanka kale waxaa jiro hab kale ee u imaan karaan infectionka ku dhaco kaadi mareennada, inay ka imaadaan habqulqulka dhiigga ayagoo kasoo gudbayo xididaha ee leedahay keliyaha. taasi waxaa loo yaqaanaa descending, inay infectionku uu ku dhaco qaab ahaan inuu ka imaado qofka qaybihiisa kore ee jirka isagoo uu soo marayo infectionka habka mareenka dhiigga. arrinkaas waxaa loo yaqaanaa descending, waxaana u badan dadka da-da ah ama dadka gaar ahaan cudurada daha qaba. waxaa si kale lagu arkaa arrinkaasi inay ku dhacdo had iyo jeer dadka la xanuunsan cudurada wadnaha, gaar ahaan cudurada loo yaqaano infective endocarditis. balse midda ugu badan marka la isla fiiriyo labada dhinac, in qofka infectionku ugu imaado qeybaha hoose kaadi mareennada iyo in qeybaha kore ugu imaado, waxaa had iyo jeer lagu arkaa dhanka iyo qeybaha hoose inuu kasoo gudbo infectionka, gaar ahaan waxaa loo yaqaana ascending. dadka khataraha ugu jiro ee uu ku dhici karo mar walba infectioniska ku dhaco kaadi mareennada waxaa ugu horeeyo dumarka qeybihiisa kala duwan. waxaa kaloo lagu arkaa infectioniska ku dhaco kaadi mareennada dadka ee kaadidooda aadka mararka qaarkood ee u xiranto, taasoo ay jiri karto urinary stones ama obstruction, inay xiran yihiin tubooyinka kaadi mareennada ama inay ku sameeyeen qaybo kala duwan ee dhagaxaan, taasoo marinka kaadi mareennada uu aad ciriiri u yahay, sababi karto inay kaadida ku hakato ee keeni karaan in infection uu ka sameysmo tubooyinka dhexdooda. sidoo kale dadka khataraha ugu jiro in kaadi mareennada infectiono ugu dhaco waxaa lagu sheegaa had iyo jeer dadka loo adeegsado catheterization, in catheter la geliyo qofka had iyo jeer uu catheter ku jiro wuxuu u nugul yahay in uu ka qaado wax loo yaqaano septicemia ama infection ama caabuq, taasoo had iyo jeer ee bakteeriyada u nugushahay inay ku badbaadi karto catheterka iyo luuminka derbiga gudihiisa ee kaadi mareenka, kana dhalan karto kuna badan karto una faafi karta qeybaha kala duwan ee kaadi mareennada. sidoo kale dadka kale ee infectionska u nugul leh ama lagu arko oo keliyaha ee kaadi mareennada saameeya waxaa ka mid ah dadka immunocompromised, dadka awoodahooda jireed ama awoodahooda difaaceed ee aada u yaraadeen, had iyo jeer waxay u nugul yihiin inuu ku dhaco infectionska kala duwan ee kaadi mareenka. sidoo kale dadka khataraha ugu jiro inuu ku dhaco infectionska kaadi mareennada waxaa kaloo ka mid ah dadka cudurada daaha la nool, gaar ahaan cudurka kaadi macaanka. anigoo ah Dr. Maxamed Liibaan Maxamed, halkan ayaan ku joojinaynaa siyaabaha ugu imaado iyo waxyaabaha sababo infectionsku ku dhaco kaadi mareennada. aad iyo aad idinkaga mahad celinaa. waxaan idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.